annagu ganacsato ahaan arrinta koowaad ee muxuu ahaa sicir bararka runtii arrintaa waa sixi lahay mushkiladayna haysataa sicir barar maaha waa sarif barar waxaanay leedahay waayo alaab badeecaddu ma kicin badeecaddu marka caalamka la eego kal hore maantay jabantay wixii dibadda laga soo siinay halkii waxa laga siinay kiishka sibira ee kal hore siinayay $8 iminka $4 8 senti baa siiya markaa muu bararin hoos buu dhacay waxaa bararay sarifkii qiimihii shilinkeena ayaa bararay arrintaasuna waxaan is leeyahay waxay ku taagan tahay laba lugood bay ku taagan tahay cudurkana haddii aanad fahmin ma daweyn kartid arrinta koobaad waxa way kalsooni daro dhammaanteen lacagteenu waxay lumisay kalsoonidaynu ugu qabtay ma jiro qof Soomaaliland dara mas'uul ha ahaado ku doonaba ha noqday kalsooni ku qaba qofku cabsi buu ka qabaa hadduu $100 lacag u goyso maanta haysto aroorta inaanay lacagtaas value maanta leedahay aanay ahayn sida awood wuxuu ku dadaalay inuu maanta bedelo oo lacagtii muxuu ahaa lacagtii Soomaaliland ku haystay inaanu la seexan ee uu dollar hore ilaa weyn loo caawa uu helo cabsi uu ka qaba aroorta waxba iska dhimaya waa ta keentay xataa shaqaalaha dawladdu qof ma jira intuu mushaharkiisa qaato jeebka ku haysto bishii ku lacagtiisa Soomaaliland shilinka ku dhamaysta qofku markuu mushaharka soo qaado markiiba wuxuu la tagay sarif le uu bedelanaya maxaa ku keenaya cabsi lacagtani value-gi iyo muxuu ahaa purchasing power-keeda inay lumiso sida awood wuxuu isku dayay lacagtii inuu ku haysto dollarnimo lacagta arrintaas hadaba halkeeda ka timi taariikh bay lahayd 94 markii lacagta la soo daabacay waxay la googsatay dagaalkii sokeeyay dabeedna waxay ku xanibatay lacagtu berbera Hargeysa Gabiile saddexda gobol ee bariga laga qaadan jirin gobolka Awdal laga qaadan jiro bir baa ka socotay inta kalena waxa ka socotay Soomaaliland shilin baa lacagtii gimbaarka ayaa ka socotay lacagta dabeedna waxay qiimihii ku luminaysay dhowrbaco حتى هرجيس سوق هرجيس وحلوه يقاني شني سجاش كل حي سجاش لا استي سجاش كين هاي هو ينبالونج مركا قفك wax kasto soo galo wuxuu isku day jiray inuu saacadaasba u bedelo dollar helo laga bilaabo xilligaas dabeedna waxay bilaabatay qofkii ganacsadii baa u horeeyay waxay bilaabeen oo ganacsadu markuu badeecada soo dejiyo ee soo cashuuro shilin buu ku qiimay jiray dabeedna lacagtiisaas iyo hantidiisa u taala baqaarka asadka hoosta waxa ugu qiimaysnayd shilin baa ugu qiimaysnayd markuu wax ka iibinayo wuxuu ku sheegay shilin intaas oo 100,000 intaas 50,000 40,000 100,000 waxa soo oranayay qofkii markii masal maanta u iibinayay uu iibiyay alaab uu iibiyay $1 dhiganta shilin sarif buu waayay galabta aroortu waayay saa dambe lacagtii uu faa'iidada qabay laga yaabo 140% inay u saarayd saa dambe khasaaro ku jiray dabeedna markaasay bilaabatay inay joojiyaan ganacsatadii inay wax ku iibiyaan shilin oo lacagtii muxuu ahaa badeecadoodii dollarkii ku baaqi yeelaan dollarkii ku baayacaan sida aawadeed arrinta kalsooni daradaas waxay abuurtay dimaankii dollarku boqolkiiba boqol bay muxuu ahaa 200 bay kordhisay oo mesela haddii ay 10 qof u baahnaayeen dhammaanteen maanta waxaanu u baahanahay inaynu dollar haysano caawa jeebka dollar u sayno dabeedna arrintaas kalsooni daradaas arrinta xal u baahan waxa weeyaan in muxuu ahaa mushkiladda in haysta waxa weeyaan baahida dollarka waxa abuuraya cabsi inaga inagu jirta ee maaha baahi rasmi ah maaha oo qof kasto Soomaaliland wuxuu doonaya caawa inuu jeebkiisa dollar ku jiro de dollarka inagu ma lihin arrinta waxa salka ku haysaa waata arrinta labaadna waxa weeyaan waa jaadka ama laga naqarsado ama loo bareero habeen walba waxaynu doonaynaa $1.7 milyan inaynu xuduudda ka saaro jaad ku soo iibsano labada mushkilada arrinteenu saarantay waa halkaas haddaan loo bareerin labada xal loo helina waxaynu sameeynaa mulkiidku baladheeya ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan baray kulmisa dhammaan hantireeda gaar ahaaneed ee Soomaaliland oo loogu talagalay inay ka shaqeyso danahooda gaar ahaaneed iyo horumarinta ganacsiga guud ahaanba marka de ganacsatada Soomaaliland oo dhami muxuu ahaa sharciyan waa xubnay ka yihiin maayadaan ayay ka yihiin halkay doonaan baa joogaan gobolka doonaanba ha joogaan marka gudiyada gobolka ka dhisan muxuu ahaa hoos yimaada rugta ganacsiga waxa kale leedahay ururo hoos yimaada oo inta isku tarinba waxay leeyihiin urur gaar ah iyo guddiyo gaar ah gudiyada guud rugta ganacsigana waxay ku leeyihiin xubno marka rugta ganacsigu waxay xukuumadda waanu de runtii maamul ahaan waa ka madax banaanahay waxaanu inagu de private sector-ka matala laakiin wada shaqayn ayaa naga dhaxaysa gaar ahaan waliba wasaaradda ganacsiga ganacsadaha wax soo dejiya
adduunka waxa la sameeyo waxa dawladdu waxa la free zone badeecadiisa halkaas u dhiga iyadoon cashuuray dabeedna ganacsadaha wholesalerka baa ka iibsada markuu la soo baxayo dawladdu cashuurta kaas ma jiro marka ganacsaduhu waa qasab badeecadiisa waa inuu keenaa Hargeysa waa inuu keenaa meel walba waa inuu keenaa Berbero warehousiyadiisii u dhigta oo meel lagu control karaa ma jirto أنا أقول هذا يا مديرية هربت جناعسك يوسف وشيء عادي وهر سنة نوصل دوية هدي عن هاي بهذه جناعسك وحنا في قصة قيم قال إلى دورية طبعا شركات وصوب نجي هؤلاء دي وكوني مكان شغلنا كمديين وحنا في قصة قيم قال إلى صدق إلى بعد سنة حنود جناعسك تدي جود رجع يدوم أربعة waxaanu dalka Djibouti kaga qayb galay aniga wasiir dawladda ganacsiga doomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga xogeyaha guud iyo wufuud kale oo kala duwan oo Soomaaliland ka socday si wanaagsan baa runtii la ku soo dhaweeyay munaasabadii iyo guud ahaan dalka Djibouti boqol guuradii ka soo wareegtay aasaaska rugta ganacsiga Djibouti oo ku soo beegantay carwada caalamiga ee maanta dalka Djibouti lagu soo bandhigay maanta carwadan caalamiga ee dalka Djibouti boqol guuradii ka soo wareegtay aasaaskii rugtooda ganacsiga ufti ballaaran oo ka socda xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland rugtii ganacsiga safiirkii Djibouti joogay Soomaaliland iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaan maanta kaga soo qayb galay rugta ganacsigu dulsaar ku ahay hay'adda shaqaalaha saddex qolo oo halka ku yaalayeen muxuu ahaa gudoomiyihii ugu horeeyay Cabdiraxmaan Faarax Sugaal Allah u naxariistee oo markii la aasaasayay uu sameeyay ayay ilaa imika ku jirtay rugta ganacsigu halkan oo ahayd guryihii qaranka xukuumadda shaqaalaha dawladda ku jiri jireen labadii madaxweyne ka horeeyay madaxweynaha imaka mudane Daahir Yaale Kaahin iyo mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo ayaa labaduba siiyay halkan imankuu bay suurta gashay in la sameeyo kolle qorshahan ganacsatahaan leenahay إن شاء الله تعالى دوان محوها إن شاء الله أن لنا هيرج لسان نقص سنة حوالي نقطة اسمها طلقة وغدر ونقروح بدن إلى نقطة هي هم وجارسية هاي تعالوا إلى هذا دي لهي نوسورة جليل كومدن كجوان إن مالقشي لهلا رتي ودريمي سانين إنه بريهن كعبان إنه shilinkeeni hoos soo dhacay sixir barar la socda waxa soo dhan sababteedu waxa weeyaan lacagteeni adkeedo dibadda u baxaysa wax kasta oo ganacsatada soo dejisaa waxay wuxuu ku taagay lacag adag lacagtii adag marka suuqa laga doonayo dareem karaysan inooma baxdo ma daabacno laakiin waa dareem karaysan qiimaha arigay inaga soo gali jirtay iyo meelo kale iyo xawaaladii wixii inoo iska wada yaraada waa in shuruucda iyo xeerarka dalka yaala ee ganacsatada laga qayb galiyay waa in sideeda loo dabaqaa haddaynu doonayno inaynu noqono dal xooga oo isku dhisan inaynu noqono maalka haysan badanaaba maal yani adeegiisii afiicnaysan weeye waa maal ka ilaalisan ribadii waa maal ka ilaalisan xaaraantii waa maal ka ilaalisan xataa inay zakad ka bixin weydaan waxyaabahan xooga saarnay waxaa ka mid ah in ganacsatadu isdhexgasho isku darsato laga baxo wax la yiraahdo family business intaanu meesha joognay waxaanu dhiiri gelinay ganacsato badan oo reer Togdheerihi ay wax isku darsadaan oo ay abuuraan ganacsi waxa maanta 14 bisha afraad 2018 aan ku wareejinayaa gudida uu gudoomiyaha u yahay Mustafa Sheekh Maxamuud xilkii gudoomiyenimo ugu dambeynna waxaan si weyn ugu adkeenayaa ganacsatada gobolka Togdheer in ay si aan hagrashada ahaan ula shaqeeyaan maamulka cusub rugta ganacsiga waxa waajib ka saaran yahay inay kor u qaado tayada adeega iyo ganacsi ee gobolka iyagoo xubnaha ganacsada ka caawinaya xagga farsamada iyo aqoonta si ay ugu tartami karaan suuqa xorta ee wadanka ka jira iyo in la helo ganacsi wada jira oo u midooba horumarinta dalka dadka iyo diinta haddaba si loo gaaro hadafka guud ee waxa loo baahan yahay in la helo guddi ganacsi oo heer gobol ah taasi oo mitasha una taagan dhammaan ganacsada gobolka Togdheer waxa aan soo sheegay inta ka badaniba meesha wuxuu bay noo qabsoomi karaan markaanu helno iskarabtaagiina iyo wada shaqayntiina markhaati waan uga nahay runtii inay wax badan soo qabteen gudida ganacsatada runtii lafdhabar bay u ahayd bulshada waqtigii abaaraha oo runtii xusid mudan sanadooday shaqaynayeen waxaan aad iyo aad uga hambaliyeynayaa
oo u soo dhawaynaynaa oo insha allahu tacaala hiil iyo hooba la garab taagan haddaanu culimada nahay maamulka cusub ee rugta ganacsatada loo magacaabay qolada xilkan la wareegaysana loo duceeyo oo loogu duceeyo inuu ilaahay xilka u fudaydiyo iyaguna talooyinkan imika halkan laga soo jeedinayay ee in badan wax ku oolka ahayd ay ka duulaan oo ka shidaal qaataan aad iyo aad baanu idin tahniyadeynaynaa qolada cusub qoladii horena loo macasalaamaynayaa waana idinla shaqayn doonaa qoladii hore xilka haysayna ilaahay subxaana watacaala khayr ka siiyo ummadooda waxay u qadimeen qoladan la wareegtay xilka cusubna iyagana ilaahay subxaana watacaala ha u gargaaro ganacsatada baynu nahay ganacsigeenu wuu ka kooban intii koobnayd ee jeebka ku qaadan jiray idan taladii iyo habkii aynu u maamuli jiray markaynu jeeblayaasha ahay mid ka gadisan buu u baahan yahay haynteena iyo ganacsigeena taasina waxay ku imanaysaa isu imaad iyo wadatashi iyo falanqayn duruufaha jira guddidii hore waxaan odhanayaa shaqadii aad soo haysay gobolka ee ganacsiga muddada 6 sano aad soo hayseen halkii aad soo gaarsiiseen iyo wixii aad qabateen ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo guddida cusubna mid baan leeyahay waxaan leeyahay xilkaa la idiin igmaday waan idinku ducaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idiin fududeeyo annagu ka maamul ahaan waxaan ka ballan qaadaynaa dadweynaha reer togdheer hortooda iyo ganacsatadaba inaanu idinla shaqayn doono si dhow rugta ganacsiga Somaliland horta marka hore wuxuu meel la mid tahay waa ruuxa ganacsiga caalamka qaabka uu shaqeeyo ma u shaqeysaa taas oo koobo waxay u xil saaran tahay inay maxaa ganacsatada Somaliland maxaa sidii ganacsigooda loo horumarin lahaa xiriirinta iyaga dhexdooda iyo dadka kale u dhaxaynta xukuumadda Somaliland iyo ganacsatada maxaa la socodsiinta ganacsatada arrimaha khuseeya maxaa ka jira caalamka iyo ku xilkooda udiridda wafdiyo shirarka caalamiga ah ee lagu casuumo ganacsatada raadinta xidhiidho ganacsi iyo sayrado waxay Somaliland leedahay maxaa markaa soo koobo tababarka in loo furo sida imika ka socota maalmahan xafiiska ka socota in xubnaha rugta ganacsiga tababaro loo sameeyo si maxaa kor loogu qaado xirfadooda ganacsi kor loogu qaado talasiinta iyo kala hagidooda oo maxaa waxa halkan lagu sameeyaa magac bixinta ganacsiga oo maxaa inaan duplication u dhicin shirkadaha ay magac la baxdo waxaanu kaantaroolaynaa magaca cid kala qaadan waxa kale oo loo xiftiyaa ganacsatada baraanadooda iyo muunadahooda iyo saxiixyadooda inkastoo rugta ganacsigu ay ka dhisan tahay dalaan aqoonsi caalami aan lahayn haddana waxyaabo badan baa noo qabsoomay shirar badan oo caalamiya baanu ka qayb gallay oo aanu geynay muxuu ahaa wax Somaliland leedahay iyo Somaliland waxa ka jira warbixin aanu diyaarinaanu geynaa waxaanu ka qayb gallay shir Ingiriiska ka dhacay mid Jarmalka ka dhacay muxuu ahaa Ethiopia Uganda Rwanda adu shirar badan oo caalami ah oo ka qayb galaynu geynay Somaliland iyo ganacsiga ka jira opportunities-ka ganacsiga Somaliland ka jira si looga faa'iideysan lahaa talo aan ka bixinayno waa ka qayb galay dhismaha xafiiska runtii muddadan joognay waxaa noo suurta galay waxa kale oo qabanaa runtii sanadkii waxaanu qabanaa carwo lagu soo bandhigayo Somaliland made waxay Somaliland leedahay kastoo ganacsatada kale oo ogolaano inay ku soo bandhigaan importkan leenay maadaama waxa dalku leeyahay wali kooban yahay waxa kale oo soo saaraa hagaha ganacsiga trade directory-ga Somaliland trade directory ayaanu soo saaraa oo
muxuu ahaa aan warbixino iyo daraasaad laga diyaariyay Somaliland gelino horta xafiisku cusub yahay runtii waana xafiis loo baahnaa wadaagsantoode xafiiska dawladda Itoobiya ay Somaliland ku leedahay waxa la yiraahdaa waa xafiis ganacsi waa trade office marka horumarinta iyo xiriirinta ganacsiyada Itoobiyana uu ka shaqeeyaa xiriirka siyaasadeed ee Somaliland iyo Itoobiyana uu ka shaqeeyaa similar kaas oo kala weeyaan marka guud ahaan marka hore waxa weeyaan xafiis qaran ee xafiis rugta ganacsigu leedahay oo maamul ahaan hoos yimaada maaha waa xafiis governmental xukuumadda hoos yimaada maadaama imaaraadku aanay aqoonsanayna muxuu ahaa magaca kaliya deemkan ku furan kareynay waxa weeye waa trade office laakiin hawlihii qarankana uu qabtaa tii ganacsatada uu qabtaa markaa wada shaqayn wali xafiiskii kolley ima qubaa lagu dhawaaqay wada shaqayn waana loo baahnaayo marka halkaa la joogo ganacsatada Somaliland de kolley carqalada iyo dhibaato lama waayayo cid u dooda ama meel ay tagaan ma haysan laakiin ninka ganacsiga Somaliland markuu imika imaaraadka jooga haday arrin ku timaado waxay doontaa ha noqoto xafiis buu leeyahay sharciga oo dawladda imaaraadka aqoonsan tahay oo sidoo madaxweynuhu dekreetadiisa ku xusay waxa jirta badeecad cashuur dhaaf la siiyo oo sifa ganacsi leh yaani muwaadinka toos looga iibinayo oo waliba qaar ka mid ah dad ajaaniba la siiyo arrinta boqolkiiba boqol waa ku waafaqsan madaxweynaha waayo dawaa cadaalad darro in ganacsadiina ku soo helo badeecadiisa cashuur dhaaf nina laga cashuuro isugu isku yimaadaan uu ku saxayay madaxweynuhu in badan in dhaweydna albaabkaas uu furmayo dad fara badan bas uu ku soo helaba wuxuu ku beeybaysaday wuxuu ku sababeeyay badeecadiisa cashuur dhaaf kula soo baxay dekada kula soo marayay ayaa jiray muwaadiniin qaar ah iyo rag muwaadiniin ajaanib wada socda oo investment baan sameynaya maalgashi baan sameynaya ku soo gabanayay ayaa jira laakiin badeecadu markay suuqa soo gasho caadi suuqa looga iibinayay runtii anagu jambarhaan ma naan gudbin laakiin dawladdu iyada ogaatay way ku mahadsan tahay arrintaas waxaan qabaa waa ku hamalyeynayna qof ganacsado arrintaa diidi karayaan ma jirto guud ahaan waa soo dhaweynayna afayeenka rugta ganacsiguna waa gudoomiyaha kolba ninka u ah jeerka waa marka wixii official ee rasmi ee ganacsatada Soomaaliland khuseeya anu ba ku hadli karaa marka runtii taana wana ka wada hadallaygu way ka garaabeen waan iska noqon doonaa xukuumadda in loo sameeyo wixii loo sameyn karo dawladda xukuumaddu maximumkeeda ay gaadho maadaama ay duruuf gaar leeyihiin laakiin sidii aan sheegay muxuu ahaa dekreetadan kumana shaqayno culture-ka ruuta ganacsigana maaha inaan xukuumadda cabashada iyo tabashada warbaahinta u marin sax maaha daa loo yiraahdo waanu ballansanahay waanu eegaynaa duruufahooda gaar ahaaneed ee jira wixii aanu aragno muxuu ahaa in ay tahay qaar wax badan oo way jirta wixii aanu waxay ugu beeriyay madaxweynaha iyo wasiirada waanu la tagi doonaa marka deewaana dadkoodii iyaguna muxuu ahaa madaxweynaha isaga calanka taagay in la dhiirigeliyo wax soo saarka dalka waxaan halkan uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi cabashadii aanu halkan hore uga cabanay ee aanu kaga cabanay digreetadii uu soo saaray ee ku saabsanayd cashuuraha iyo dhiirigelinta warshadaha labadaba kaga hadlaysay aanu kaga cabanay oo runtii markii warkaygu gaadhay si mug leh noo qaabilay la soo dhaweeyey wadaninimo leh isaga oo runtii si qalbi furan oo dood wacan leh lagu qaabilay ayaa aan uga mahad celinaynaa sida ugu tixgeliyey ganacsatada dalka dhiirigelinta warshadaha waanu nooga garaabay xabashadayadii waxaanu runtii kala kororsanay macluumaad fara badan oo labada dhinacba runtii markii hore wadahadal la'aanteedaasi iyo dood la'aanteedaasi aan muxuu ahaa meesha ka maqnaa madaxweynuhuna wuxuu u helan yahay wax soo saarka dalka inuu siiyo mudnaanta koobaad waanu nala qaatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba annagana wixii nalagu xidhay ee nalaga rabay waa qabanaynaa haddii la yidhaah anigoo ka hadlaya magaca
boorka ururka warshadleyda madaxweynaha shalay sidaa uu sheegay Jamaal waan dood dheer baanu galay waan isu afkaranay guulna way ku dhamaatay wixii aanu ka wada hadlaynay inta noo dhimana waxa yaroo waxa loo saaray guddi marka aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqaynaa una soo dhaweeyay si fiican buu noo soo dhaweeyay tixgelin fiicanna wuu na siiyay marka koowaad waxaan idinka mahadnaqaynaa sidaa noo soo sharafteen ee u aqbasheen martiqaadkaanu idiin fidinay oo ahaa inaynu ku faraxno inaynu ku bogaadino guushii gudoomiyaha shirkadda Telesom iyo shirkaddu ay ka soo hoyeen Afrika oo ah guul aynu wada leenahay waa guul qaranka Soomaaliland u soo hoyatay ganacsatada u soo hoyatay shirkadda u soo hoyatay guud ahaanna Soomaaliland oo dhan u soo hoyatay arrintaas inaynu maaragtay dee ku bogaadino oo la qaybsano farxaddeeda weyno xorkayno halkan iskuul marka aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah ina soo siiseen waynagii soo dhaweynay shalay kelmadihii munaasibka ay la odhanayay waa la yidhi waxaynu maanta aynu ugu ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala guusha ay keeneen Telesom keentay iyo cabdikariim maxamed iid guusha uu keenay ilaahay baynu ugu ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala in uu xoolaha iyo carruurta iyo shirkadaba barakeeyo hambali cabdikariim waxaa weeye munaasabadan aadka u muhiimka ah waxaan soo dhaweynayaa oon hambalyeynayaa cabdikariim caawa halkana ka hadlaynaa laakiinse waxa weeye innakoo waddankaa yara oon la ixtiraafsanayn oo dhaqaalaheenna oo iska liito haddana cabdikariim adiga tiimkaaga dee africa oo ku dhan inaad excel garaysiin waa wax aada u weyn haddaan nahay masalan dowladaha ma og tahay helaya mucaawinooyinka dowladaha ma og tahay helaya ma og tahay kaama dowlaha dariiq suuq u furan yahay dee wax weyn ma ahateen inakoo xirxiran iyaa haddana kaalintaa gashay waa waxaan ma og tahay kayr caadi waxaan jeclaan lahaa inaan halkan marka ugu horeysa aan uga mahad celiyo rugta ganacsiga Somaliland oo soo qaban qaabisay xafladan jazaakum allahu khayran aad iyo aad baa u mahadsantihiin runtii maanta isgaarsiintu ma aha wixii aynu u soo baranay ee ahaa inay laba qof ay ku wada hadlaan waa wax aad iyo aad runtii uga guda dheer waxaa laga hadlayaa faca afraad ee kacaankii warshadaha kaasna waxaan isleeyahay tii tallaabadii hore waa qaadeen markii aan joogay Cape Town ayaa waxaa lagu soo bandhigaa waxyaabo kala gedgedisan dad technology-gooda ayay ku soo bandhigaan dad waxay ku soo bandhigaan maaragtay fikirka iyo talooyinka iyo hal abuuridda ay la imanayaan marka dalalka iyo warshaduhu iyo shirkaduhuba waxay leeyihiin istaan ama meelo ay istaagaan marka dal waliba wuxuu isku xayeysiinayaa wixii shirkadihiisu ay sameynayeen marka adduunka marka maanta la eegayo Israa'iil 20% research and development-ka adduunka halkaas base-koodu uu yahay population-ka adduunkana inta ka yihiin waa la og yahay waxa weeyaan 0.5% less than 1% adduunka way ka yar yihiin aad bay u soo bandhigeen nin baan u imid markaasaa IoT baa la yidhaha Internet of Other Things ayay maaragtay ay ku magacaabaan luqadda ingiriisida waan isoo taago marka wuxuu ninkaas iyo shirkadiisu soo bandhigayeen baabuurta iyo sida loo manage gareeyo marka waxaan ku yidhi bal iiga warrano maxaa shirkadaada ay sameynaysaa dalkiin muxuu ku soo bandhigayaa marka wuu eegay
wuxuu yidhi kaarhkaygii baan u dhiibay somaliland new somaliland adu waxaan markii dambe east africa horn of africa oo soomaaliya markaasuu yidhi probably waxaa laga yaaba waxaan aanu iibinayno 10 sannadood ka bacdi inaa isticmaashaan imaka waxaan u malaynayaa diyaar uma tidin soo meeshan gaajadu ay ka soo baxday dilku ka soo baxay baas maaha ninkii kaarhkayga waan u dhiibay waxaan ku yidhi qalabkanaad iibinaysid muxuu qabanayaa wuu ii sharaxay baabuurkaaga markaad kaxaysatid isbiirkiisaad ku kontaroolaysaa shidaalka kuugu jiraad ku kontaroolaysaa maxaan ku dhahdaa eeriyooyinka sugan ee aad doonaysid inuu joogunba uun aada la soconaysaa waxaan ku idhi intaa markaad soo bandhigtay 2 sannadood ka hor ayaanu dalka ka hirgelin ninkii intuu dib isku taagay ayuu halkan hadiyad ka soo saaray wuxuu ihi balniyaho hadiyadana qaado bal waxa weeyaan aynuna wada soconno kaarhkaygu waa kaas horta ma aha uun runtii waxaynu iibinaynaa wax maxaanku dhahdaa ku kooban 2 qof oo wada hadlaya way ka weyn tahay way ka salbalaaran tahay ilaah mahadda leh ee ina siiyey goob nabada oo aynu ku shaqaysanno waa inaynaan marnaba aynaan mahadnaqaasi aynaan ilaawo